السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما والله الله Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa. Maanta muuqaalkeenu ka duwan yahay muuqaaladii hore. maanta waxaa la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo aad iyo aad u dhibaataysan. Run ahaantii hooyadani waxa ay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed markaasi abaaruhu sida aadka u daran u saameeyeen. Sidoo kale hooyadan waxa ay ka timid miyiga iyadoo magaalka markaasi muddo dhowr bilood joogta. hooyadani sidoo kale waxa ay wadataa 3 caruur oo waliba ka ugu weyn uu markaasi isaguna la ildaran yahay xanuunka macaanka. sidoo kale hooyadani 3 waqti aad bay ugu adag tahay inay markaasi hesho oo waxa weeyaan mar waxay markaasi dul fadhidaa wiilkeeda ugu roon oo markaasi xanuunka la ildaran oo isaguna markaasi had iyo jeer ay xanuunkiisaas markaasi markasta ay la tacaalayso oo aysan gurigiina ka bixi kareynin. kulli anigu markaan hooyadan xaalkeeda idinka warbixinayo waxa laga yaabaa walaalayaal inaanay saameyn idinku yeelan, laakiin hooyadani marka ay idin waramayso waxa laga yaabaa inay idinka meel idin taabato aanad u damqataan. bal marka waxaan isleegi doonaa hooyadan Soomaaliyeed ubadkeedu midka ugu roonana uu ka xanuunsanayo waliba xanuunka macaanka la ildaran yahay. iyadu markaasi bal faahfaahin ballaaran inaga siin doonta siday markaasi bal wax u jiraan iyo xaalku sida uu ku yahay iyo markaasi xaalka hadda ay ku sugan tahay ayay markaasi inooga waramaysaa bal la dhageyso. magacayga Maryam Axmed baa leeyahay waxa weeyaan hooyo xaalkaygu aad buu adag yahay aad baan u suganahay marka waxa weeyaan hooyo suuli ma haysano waxaan ku iri ma haysano biyo waxaan ku shubano caruurta waxbarashada oo horeysa waxaan ku bixinay waan weynay halkaas inoo wada fadhiyaan waxa weeyaan ku yar naqan macaan biyo leeyahay macaanka waxaan dibada u siiyo iyo mateedkiisa wixii uu cuni lahaaba aad iyo aad baan hooyo uga dhibaataysanahay waxa laga yaabaa inaan habeen naqadno habeenaan cashayno bini'aadam ka soo cashayno. walaalayaal wad aragtaan hooyada Soomaaliyeed dhibaatooyinka markaasi ay aadka uga cabanayso. sidoo kale kulli waxa weeyaan qofka bini'aadamka waxa ugu muhiimsan ee uu u baahan yahay maanta waxa weeye horta marka ugu horeysa wixii uu ku noolaan lahayo 3 waqti oo wad ogtiino qofka bini'aadamkii 3 waqti hadii uu waayo inuusan markaasi caafimaadkiisu taam ahaan karin. hooyadan marka qodobka koowaad ay ka dhawaajisay baa wuxuu yahay in 3 waqti hadii micnaha tusaale ahaan oo kale quraacdii ay hesho aysan qadadii heli karin, hadii ay qadadii heshana ayna cashadii heli karin. halkaas waa halkaas. sidoo kale waxa uu dheer caruurta yar yar waliba ka ugu roon isaguna macaanka la ildaran yahay oo ay la tacaalayso had iyo jeer oo aysan ka tagi karin oo maanta hadii ay istiraado u foofto kareerka oo wax u soo qabo u soo shaqee aysan ka tagi karin oo markaasi wiilka xanuunsan uu baahan yahay in markaasi la garab joogo oo hadba marka xaaladda taagan wixii ay u hesho marka hadaba walaalayaal hooyada Soomaaliyeed mar aan weydiiyay bal caruurtan aabahood halkii uu ku dambeeyay waxa ay ku jawaabtay sidaan oo dhintay hooyo oo dhintay Allah naxariista oo dhintay 5 bilood kalkaan lagu mootay yahay marka waxa weeyaan adeer male arqab male adeeradooda 5 rag ay soo daday 5 tiba way hoydeen waxa adeeroon waxaan ku qaylatiga male arqab male marka waxa weeyaan abti male adeer male qareen la'aan iyo qusbaan la'aan. mararka qaar waxa dhacda hooyada Soomaaliyeed marka uu ninkan xanuunku ku kaco ama macaanku ku kaco ee ay dhanka dhaqaatiirta ula cararto waxa dhaqaatiirtaasi kaga soo noqdo su'aalo aad u badan su'aalahaas oo markaasi oranaya sida muna arqab lahayn cidii wada ka bixisa muna lahayn qareen muna lahayn marka lagu yiraahdo bartaan baan ku hayaa markaan jaarka ugu qayliyay raakii yara wiiga qadayaana bini'aadamka u naxaa intaan qadayno iyo intaan cashayno way isleegtay waxaan weynama haysan waxaan googlena ma haysan dadka miiga soo barkacay mana 5 bilood baan ka jooga xaalkaygu aad buu adag yahay aad iyo aad buu dhibaataysan yahay biyo xushmana ma haysano waxaan saaka xasiisana ma haysano waxaan ku iskuul caruur kaga bixista ma haystaan ku geysto waxaan ku madrasad ma dhigtaan iskuul ma dhigtaan labadan kale fiyoobi kaasina saas wada raayay u yeedaan ka tagi laana isagii baba kooma galay ku waxa iga daraatay ba cuntadiiba dawadiisa iga daraatay tabeetayna intaan u tagay markaas ay calaashay dawadiiba sida ugu soo yaray habeenkii dhawayto dawadu isku tolqaa macaanka inaan kaasina aad biga dhibaataysan yahay sidaasaan inaan ku weeyaan 14 marka dawadiisa mar hadii cuntadiina ay gabaabsi tahay oo dhacay ma adkaysan karayo أنا وحنا مالو كعلاء هاي أنسان سكاير نك تجلاه نعيد ولا بتجلاه أفكيس أنا لالنا يهويو مركب وحوي ينكون يقوي بحيان ماشي دوران بقصة عنيان ماشي دوران بيتجيان أنا كام معاك وهي أرد بعطي سر إن جاتش حميرينين وهي سيلاهوني يخانو أيام وحنا كورو كربطوبان هاي وانبرست يقول بمشي سكاير شو كانوا مرا دور كي كانوا كوجاتين أدي أد بنا شيء الصوغان طيب بين كعوا وإذا يوجي ما حنا آخر هيدا يلا مشرو guriga wada arkaysaa hooyo siduu yahay hay'adii qoday siduu hooyo kulli xaal kana macaan kale ayaa cishol bishanta bilood buu wadaa cishana dhaca cishana wadaa
marka waxa weeyaan hooyo dee wixii aan duldhigayay iyo wixii aan saaray baa daran haysanin dee waa maga caajisay hooyo macaani qodidiisa waa laga caajisay haddaan tolka u bari lahaa haddaan biniaadanka ugu yeedhan lahaa wixii aan ku daboolaya iyo wixii aan ku sibdhin lahaa midnaba hooyo maayo macaani marka waxa weeye xaalka iyaga ilaahun baa yaqaana waxaan ku dhaha goonbaa weeyaan 5 bilood baanu naalaa meesha halkaan kasoo barakacnay miyii baanu ka nimday dadka xooluhu ka dhammaadeen baanu nahay aad iyo aad baan hooyo u dhibaataysanahay xaalka iyaga ilaahun baa yaqaana sidaad nagu ogaateen baaba sida ayaa anagu dhameeyey macaani maxaad ummadda muslimiinta maxaad ka codsanaysaa hooyo ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa in la caawiyo oo sidaan u dhibaataysanahay ilaahay tuso waxaan kur sidaan ahay oo waxaan kur wixii laga qaban karayo laga qabto ayaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa aad iyo aad baan iska dhibaataysanahay inaan ayar macaanka ay ugu daraado suuli la'aanta baralaantaas ay ugu daraato inta waxaan u cunahay noogu daraato dee aad baan hooyo iska dhibaataysanahay aad iyo aad baan hooyo iska dhibaataysanahay inay Soomaalida saaka sidii wax loogu tari lahaana loogu taro ayaan hooyo ka codsanayaa macaan insha Allah ugu dambeyn walaalaha Soomaaliyeed kulli waxaan idinka codsanaynaa in waxa weeyaan wixii tabartiina kulli lambarka xaqana idinku soo qorina insha Allah wixii tabartiina waxa weeyaan maanta hadaad adigu ladan tahay oo halkaaga doolareed maanta wax ku falayso ay wax ku dheer yihiin qof maanta wax ku taraya marka waxaan idinka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeyiga Soomaalida meel kasto ay ka joogaan waxaan ka codsanayaa in hooyada Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan leh ay noo soo caawino oo ay nagu gargaarno ka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xataa على هدي أنا أودي كرين إن ما أنت 0.5 حتى سوق بسو مقال كل وكلياته واحد سمي شهر قرية سوق جارو ولا على كلا Soomaaliyeed أودو دوله إني مركز واحد كمان كران معنا وإحنا أصادر كران وحي أيكو عاون كران بهذا الدقالة العجاد نقطه يهدي راشي نقطه واحد كستهدي نقطه ولا لا يلقو طبين لبركيد وكاس يمجعيد يستحن مركز وحي أتكو تاري كريسان أتكو عاون كرتان هالكاسي دلوسيدين sidoo kalena kala xiriiri kartaan wixii faahfaahin inta dheerna aan aad kala soo xiriirnaan lambarkayga comment-ka hoosan idinku qorayaa aad baad mahadsantihiin